بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كبيرا وبعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال والآراء وآية اللحية استيدي اللحدا سورة النحل waxaynu ku dhex jirnay ilaahay subxaanahu wa tacaala waanintii uu ina waaninayay quluubteenna la hadlayay dhagaheennana la hadlayay lilajyaali alxaadirati waalaatiya qarniga joogaya kii tegaya ka imanayaba nicmooyinka ilaahay uun laga helo een warshadaha dadkuna soo saarin cid kaloo makhluuqiina ku deeqin ayaa kolba indhaheenna qayb ka mid ah ilaahay uu u jeedinaya inaynu ku dalxiisno oo aynu daadaawanno oo aynu isugu faanno arrintu ma aha laakiin waxa weeye sidaa qur-aankaba ilaahay uhi wa inna lakum fi lancaami lacibra waa cibra قصة القرآن كشيء عبرة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب نعمة وشيء عبرة وحغيب كأ مستقبل كأ وشيء عبرة كل ذلك قرآن وكتاب اسمه مضيد يهجاتين دد وهجاتيو سدوا كلا وكتاب كحرية أطمها يو إلهي أبو رتيب وسكحرية marka qaybihii nicmada la xiriiray sharaabka ayaynu dhowr ka mid ah soo marnay caanihii iyo cabitaankii casiraadka la cabayay ayaynu soo aragnay iyo biyihii oo ka sii horeeyay malabkii baa ilaahay halkan uu ka hadlaya waa sharaabiyadii qiimaha badnaa wa awxaa rabbuka ila an-nahl ilaahagu wuxuu u waxyooday nabi maxamed oo shinnida bahasha la yiraahdo ayuu waxyul ilhaam siiyey qalbigeedu ku ilhaamiyay أن اتخذي بولهاي واحد سميستا من الجبال بورها بيوتا قرية كسميسو بورها واحد كسميستا قرية ومن الشجر درت حاجة هذا واحد كسميستا قرية ومما يعرشون ضدك وحا أي دستانا قرية كسميسو قبل الله يكون لسيرنا قرية كدغو ثم انت أكذب كلي واحد عنتاه
min kulli thamaraat midho oo dhan wax ka soo cun adigoo diyaarinaya malabka faslukii waxa aad soo raacdaa oo aad soo qaadaa subula rabbiki ilaahaaga wadooyinkiisa dhulula iyaga oo ku sahlan oo ku salaxan yakhruju waxa ka soo baxaya buu ilaahay yidhi min butuuniha caloosheeda waxa ka soo baxaya sharaabun shay la cabo oo malab la yidhaahdo kaasoo mukhtalifun uu kala duwan yahay alwaanu midabadiisu kala noocnooca fiihi waxa ku sugan malabkaas buu ilaahay yidhi shifaaun linnaas dadka caafimaad baa ugu sugan inna fii dalik dad yahow arrintaa waxa ku sugan la'aayatan calaamo weyn oo muujinaysa cajaa'ibka makhluuqaadkan iyo ilaahay abuuray awooddiisa liqowmin yatafakkaruun dad fikiraya oo caqligoodu shaqaynaya oo ilaahay ku xidhmaya oo uu baraarugaya qalbigooda kuwaasay aayad ugu sugantay mid walba ma ahe waa cajaa'ib almakhluuqaat cajaa'ib alxayawaanaat xayawaanaadka iyo cajaa'ibtooda ayaa halkan iyo nicmooyinka laga helo marka aayaadku waxay faa'iideynayaan qoraxdii iyo dayixii iyo meerayaashii iyo nabaadkii iyo wixii baxay iyo makhluuqaadkii xayawaanku uu ka mid yahay intoo dhammiba waxa ay ka mid noqdeen wax ilaahay uu inoo sakhiray oo uu inagu caswuumay oo inoo sahlay inagoo inoo sakhiray markaa nicmooleydii waxaa ku darmatay qayb la yidhaahdo shinnida sidaa daraaddeed baa a'immada in fara badan oo ka mid ihi waa a'immada qayb ka mid aan idhaahde waxay ku tegeen dee sida sekada looga bixinayo wixii la goostay iyo wixii la beerto in malabkii iyo casalkiina looga bixinayo oo malabka laftiisu waxyaabaha sekoobaya uu ka mid yahay wa aatuu xaqahu yowma xasaadi maalinkaa soo goosataan beeraha xaqiisa bixiya baa ilaahay wuli marka malabkiina marka lasoo urursadee lasoo jamciyo wixii ka sugnaaday ayaa xaqiisa la bixin doonaa 10% meelaha waa taas weeye waxyiga halkan ilaahay uu sheegay inuu shinnida u waxyooday waa waxyul ilhaam wal irshaad waa hanuunin ilaahay uu hanuuniyay oo sidan uu ku jiheeyay ilaahay baa khalaqa kulla shay thumma hada shay walba intuu ilaahay abuuray buu hanuuniyay shinnidu waxa ay ka mid tahay sida quraankuba sida si gaar ah u tilmaamay xaaladeeda si gaar ah u tilmaamay oo u baahan cibro dheeraad ah in lagu qaato iyadoo itaalka leh waxa ay soo saarayso xayawaanka yar waxa la tilmaamaa inuu leeyahay nidaam cajiiba oo ijtimaaciya oo maamul iyo idaarad la xidhiidha oo aanay mujtamacaadka mutadawirka ah ummadaha horumarayba aanay lahaynba madaxdiisii buu leeyahay shaqaalihiisii buu leeyahay kala dambayntiisii buu leeyahay kaydkiisiina wuu leeyahay wax kala daayo bani aadamkii ilaahay caalamka u sakhiraa marti waaba shinniya maxaad malabhaysaa iyadii baaba marti loo yahayba iyadii baa wax sooriyeynaysa min cajaa'ibi bay ka mid shinnidu wax yar haddii aynu ka taabanno bal qolyahan baaritaanka ku sameeya iyo wax cajaa'ibta ay ka sheegaan runtii wuxuuna u markhaati furaysaa dee qur-aanka kariimka ah oo dee intaasoo qarni ka hor ka sii warramay axwaasha iyo waxyaabaha la xidhiidha ayuunbaa wixii baaritaan ay ku sameeyeen ay ka warramaysaa qaybta xanaanada xoolaha iyabay aada uga warramaan waxay u qaybsantahay bay idhahdeen 3 qaybood shinnidu midi waa boqoradda qaybina waa labka qaybina waa dhadiga 3 qaybood ayay u qaybsan tahay inta faraha badan waxa shaqeeya dhadiga labku waxba ma qabtaan labku waxay qaabilsan yihiin taa boqoradda inay rimiyaan biyo waa cajaa'ib meesha dumarku maxay hawl hayaan waaya marka ay orgoonaysa iyadu kor bay u duulaysaa way sii ordaysaa way fogaanaysaa waa la wada daba yaacayaa kuwa labkaa daba yaacaya ka u dheereeyuunbaa soo riminaya inta kalena waa la cunaya oo waxa khaarajinaya kuwii dhadigaa markaa kol haddee iyaduna rinto kuwii labaa waa laga maarmay qaybta dhadiga oo aan boqoradda ahayn baa shaqaysa baa layidhi cidda shaqada qaabilsan ee waxaanoo hawlo qabanaysa waa iyaga waa dhadiga aayaadka marka aad eegto saasay caddaynayaan bal u fiirso an ittakhidii
يأذن ويأدك ثم كلي فاسلكي waxaa iyadaasi tusinaysaa wax dhadig inuu ilaahay la hadlayo subxaanahu wa tacaala baasha iyada ah waxaa ilaahay uu siiyey dhadhan aad iyo aad u cajaa'ib badan oo xeel dheer iyo arag xaadun jiddan aad u fog oo xasaasi ah iyo garaad la yaab lahoo ay garanayso ubaxa ay soo guranaysaa goorta uu soo baxo ee ifraasaadka uu sameeyee dheecaanka laga soo qaadan karo iyo wakhtiga uu abaartayaan wax lagu lugo-aynin intaba ilhaamkan ilaahay uu siiyey ayay ka mid yihiin waxyaabahaas oo dhan waxay u nooshahay kooxo kooxo iyada laftigeedayo qolo waliba boqoradooda leeyihiin oo aan isku dhex darmaynina kala shaqo tegaya waxaa la yidhaahdaa bahasha boqoradda ah cimrigeedu wuxuu gaadhaa 5 ilaa 7 sannadood boqoraddu waa tan u buurane marka la qabto aanay bahashu ku taabanayn iyaduna ku qaniini mayso waxay qaniintana waxa la sheegay boqorad kaloo la tartamaysa dad qofkana ma qaniinaysa kuwa yaryarna ma qaniinaysa iyadu haddii ay soo baxdo mid kale oo iyaduna wax isyara mooday taasun bay qaniinaysaa baasha madaxnimadu waa khatar baasha madaxnimadu waa cajiib weeye intaa kale qofka qabto cuni mayso iyadu kuwan labka laynaya ma aha wax kale ma dilaysa taasun bay dishaabale kuwa kale cimrigoodu laa yujaawis bidcata asaabiic inta kale dhowr wiig ma dhaafaan xagga noloshooda aayadda ilaahay waxa uu yidhi uma kulii min kulli thamaraat iyaba waa cajaa'ib midho oo dhan buu qur-aanku leeyahay markaa waxay tilmaameen kuwa daraasada ku sameeyey inay maalintii soo booqanayso ama ay wax ka soo dhadhaminayso ilaa 1,000 ubaxa si ay u soo hesho dhibic raxiiqa dhibic dheecaanahoo wixii ay malab ka samayn lahayda kaasaa raxiiqa la yidhaahda si ay u soo hesho 1,000 ubax bay soo maraysaa baa layidhi si ay u hesho 100 garaam oo raxiiqaas milyuun ubax 1 milyuun oo ubax waa inay soo martaa si ay u samayso kiilo malaba wuxuu u baahanayaa socodka iyo duulimaadka u baahanayaa 400,000 oo kiiloomitir bay dhaad waa 10 jeer oo dhulka lagu wareegay in leeg waaya faashaasi orodkeeda 65 kiiloomitir ayay jaraysaa bay dhaadeen saacadii waa marka ay maran tahay booyadu laakiin kolka ay booyadahaasi soo dhaansadaan waxay soconaysaa 30 kiiloomitir saacadii waa surcada orodka gaariga wax ku dhow waxaanay sidee raxiiqa ah ee dheecaanka ubaxa ka soo jaqday thuluthaankeedu u dhigmaa waa cajaa'ibta ilaahay macnaa culayskeeda 2 jeer buu dheeryahay 30% waa iyada 60% waxa weeye waxa ay sido marka xaaladdu si adkaatana shidaal gaas dheeraada ayay baalasha ku qaadanaysaa sidan dayuuradoo kale dee mar haddii la yidhi waa la laynayaa kuwii labaa oo kuwii yaryaraana ay boqoradda mooye intii kale dhowrkii usbuuca mar dhimanayaan dhalideeduna way aad u badantay sidaa daraaddeed baa la tilmaamo wakhtiga guga iyo barwaaqada oo kale inay dhalayso 1,000 beed mee 2,000 beed ayay dhalaysaa wakhtiga guga ilaahay baa isu dheeli tirayo wixii hore u dhintaaba horena wuu u tarmaa horena wuu kacaa waa tawaasunka rabbaaniga cajaa'ibka ay bahashani leedahay iyo waxyul ilhaamka ilaahay uu siiyey waxaa ka mid ah waxaa faraha badan kolka ay dhalayso 3 qaybood u ahaa qayb walba meel gaar ay ku dhalaysa inta boqoradaha noqonaysa qayb meel bay khaanad bay ku dhalaysaa inta labka ah meel bay ku dhalaysaa inta dhadiga kale booyadaha la yiraahdo cawaamilka shaqeynaya meel bay ku dhalaysaa waa meel aanu bani aadamku gaariba imika islaan diktooradaho PhD diyaariso cilmiga caafimaadka aad u taqaanaa hadday uur qaado dee uurkaasi oo mataana uu yahay kalab iyo ka dhadig iyo xaaladiisu waxay noqonaysaa waxba kama garanayso waa meel aanay gaarinba ma tacrif ma garanayso iyadoo dee jihaaskan la isticmaalay waxa mooyaane iyo maca kowniha mutakhasisa iyadoo cilmiga caafimaadka ku takhasustay islaantaasi uurka leh ma garanaysa lab iyo dhadig ka ay sido laakiin tani waa taa kala abtirsay mid walba meeshiisii ku baarkin garaysa marka had iyo jeer ay dhacdo doorashadu inay timaado ama
bahashaa boqorada alla doorto idiraab baa dhacaya tii hore markay meesha ka baxdo xoogaa unbay isku yara wareegaysaa shan waa xumadda doorashada xumad bay iska leedahay markaa shuwaya fii idiraab xoogaa isbaraanbara baa dhacaya intaa kadib baa biidn illaahi tacaala iyo ishaara ay isla garanayaan oo luqada isku fahmaan ay leeyihiin ayaa taa lagu soo saaraya markaynu idhaha iyada ka sheegno baashaa shinnida la yidhaahdo waxa ilaahay uu xusay halkan socodkeeda dhowr arrimood waxyigaa waa la tilmaamay iyo ilhaamka ay leedahay dhismaha guryahana waa la tilmaamay oo gurigeedu habka engineerinka waa kuwa ugu mustawa sarreeya baa leeyahay nidaamkaa sudaasiga goobadaa sudaasiga 6 gees leh ayay u fareem garaynaysaa oo u dhisaysaa shamaca ay wax ku samayn doonto marka waa handasad iyo horumar xagga dhismaha ah isagu injineeradu ay runtii wax badan ka faa'iideysan karaanba ismaha ilaahay uu maaragtay ku ilhaamiyay dhagaxii ayay ku samaynaysaa dhirtii bay ku samaynaysaa bahashii gaawada miyaa la odhan jiray qabaalkii loo dhigayay taasina waa mima ay carshuun iyaduna waa waxyaabaha ay maaragtay ku diyaarinaysay ka mid tahay xagga socodkeeda saayna horeba u tilmaanay socodkaa dheeraynayay leedahay ilaahay baa waxa uu tilmaamay fasluki subula rabbiki dhululan wadooyin sakhiran inay jiraan 7 kilomitir meelahaasay socotaa baa la yidhaha marka ay daaq tegayso fallaadhaha qoraxdana way raacdaa fallaadhaha qoraxda adiga aad wax isaga dhigayso ee kuba yara cawaraya kuwaasa iyada hagaya marka wadada ay haysaa waa taa toobiya 7 kilomitir waa ilaa garoonka diyaaradda meelahaas xayawaanka yarade dabayluhu saa u duwi karayaan masaafada intaa la eg bay soconaysaa amban maysa halkii ay soo qaadanaysaa way imanaysaa way noqonaysaa saasay ku wadaysa subula rabbiki dhulula ilaahay baa u sahal شرابكي بايم يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه وعسلكي ويا علوش يدو كصوب حيا وإفراسات كاسي سود دينيسا مدبدي سنوا خلاف سين وعلى تلما بها الكالا إلى هذا ملبك إن مدبدي سا يمرك لاقا نوعية ديسا إلى تضبط بقلو قيبات بو نقضعه 700 قسم والنوع أيو قاريا تلون كيس هي طعم كيس هي تيديس ساد رادد با وضع كان لما شاركي إثيوبيا وحلا حصا إلى لبا إيا تضباط قيبات إن أي كصوب بحام ولا جهلا ملب كان مركل أجو معانك كتيرة وحكتيرة فيه سكر القصب وسكر العنب وسكر الفواكه إنت سو قيبات ملب كان لا جهلا kan aalaha iyo ka cinabka iyo ka khudradda sonkorta ku jirta oo runtii aad iyo aad u faa'iido badan way ku wada jiraan malabka isaga ah faytamiinada uu leeyahay waxay noqon karaan kuwa dawaa waxay noqon karaan kuwa raashina faytamiin A iyo B C K saddexdaba afarta qayboodba waa ku jiraan beeyadaan qoliyaha baaritaanka ku sameeyay ilaahay subxaanahu wa ta'ala halkan waxa uu xusay fihi shifaa'un linnaas inuu dadka caafimaad ugu sugan yahay wax caafimaad uu ku sugan yahay oo erayga shifaa quraanku uu isticmaalay waxa jira un malabka iyo quraanka kariimka ah وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين waxa la oran karaa marka midina wuxuu daweynayaa ruuxda oo quraanki malabkanina wuxuu daweynayaa biidin Ilaahi ta'ala jasadka iyo jirka ayuu daweynayaa inta uu ghidaa yahay inta uu dawo yahay iyo inta uu cunno yahay labaduba waa laba aan kala dhicin cunnana uu yahay dawana uu yahay malabka waa shay runtii aan badnayn sida looga helo waxyaabaha kale ustaad min al-asatida qoliyahan tarbiyada naxli barbaarinta ka shaqeeya shinnida oo ilaa 40 sanadood cilmigeeda diraasad ku hayay oo waqtiga aan quraanka waxba ka aqoonin ayaa wuxuu dhageystay aayaadkan ilaahay uu ka warramay markaasuu yiri ma intaas oo qarni ka hor ayaa macluumaadka bahasha ilaahay ka bixiyay wax badan imika aan ka ogahay fadahasha markaasuu wareeray
aad iyo aad buu la yaabay macrifada iyo cilmiga ilaahay bahashaa ka sheegay ee ummadda uu ka ogeysiiyey si kooban weliba. cali ibn abi aalib ilaahay ka raali noqdo, isagoo sidaa maaragtay u eegeegay qur-aanka oo faqiih ku ahaa qur-aanka iyo axkaamtiisa fahamkeeda, ayaa waxa uu idaa araada axadukum shifaa falyaktub aayatan min kitaab illaahi fii saxfa. midkiin markuu caafimaad doonayo aayad qur-aanka ka mid ah ha ku qoro xeedho ama madiibad intuu dee khadiya wax ku waxeeyo. markaa biyaha samadana ha ku maydho, islaantiisa ha ka qaata buuhi xoogaa lacagahoo ay raalli ka tahay oo malabka kusoo iibsado, biidni illaahi tacaala waa bogsanayaabu. afartaa arrimoodba aayadaan isugu keenayaa buuoo daliilka u keenaya. tii qur-aanka wuxu uhi wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaan waraxmatu lilmu'miniin, in qur-aanka caafimaadku uu ku sugan yahay jidhka iyo ruuxda labadaba aayaddu way sheegtay. biyaha samadana cirka ka soo daayina ilaahay wuxuu uhi wa anzalnaa min asamaa'i maa'an mubaaraka, biyo barakaysan baa ilahay u tilmaamay. ruuxa dumarkaa meherkeeda wixii ay kuu quudha ee xalaalahee miirqabay ku bixiso iyadoon cidina xuurtayn dabadana laga riixin, iyadana ilaahay waa ammaana wuxuu uhi fain tibna lakum can shayin minhu nafsan fakuluuhu hanii'an mariyan. ragow ha dirqiyan dumarkii ha dirqiina wixii ay laakiin iyagoo dadaalaya oo mafsuud ahoo nafisa idin siiyaan dee isagoo hambalyo iyo hunguri mar leh caafimaad leh cuna, isagoo caafimaad leh. malabkiina ilaahay waxau ihi fiihi shifaaun linnaas, dee afartan aayadoodunbaaba la isu geyno afartaba caafimaad baa ka soo bixi buui. waaya malabka waa la tijaabiyey caafimaadkiisa, nebi maxamed baa ku bilaabay calayhi salaatu wasalaam. ninkii caloosha xadiidkii saxiixaynka ku sugnaayo caanka ahaa, ninkii caloosha shubmaysa maxaan ka yeelaa buu ihi nebi alla, walaalkii baa idhi sayn u daweynaa, walaalkay calooshii baa socotee isqihii casalan, dee malab sii buu. kolkaasuu soo noqdo wuxuu ihi ninkii wuu kasii darayba shubankii, malab sii buu. haddana mar saddexaad malab sii, mar afraadkiibuu nebigu yidhi caloosha walaalkaa calooshiisuna been bay sheegtay, ilaahay iyo rasuulkuna run bay sheegeene ninka malabka ku wad. mar afraadkiibaa markaa ay calooshii dhag joogsatay caafimaaday. marka fudalaadkii shay xaar ahoo kulul maadaama uu yahay, wixii buruudada iyo qabowga ka yimee fudalaadka ahaabaa ka baxayay si uu nadiifu noqdo. ilaan calooshu waa warshadaa la dhaqdhaqaye, warshadaana haddii clorogas lagu shubay iyo wixii qaalic ahaa ee wax ka jarayay oo ay siidh kulul lagu shubo, dee waxa iska macruufa daxal badani inuu soo baxayo meeshani wax meelo badan ku dheganaa ay nadiif noqonayaan. markii ay nadiif noqotayna waa bogsaday. caafimaadku saddex buu ku jiraa buu nebigu fii shardati mixjam aw sharbati casal aw kayati min naar waanha ummatii can ilkayd. caafimaadku saddex buu ku jiraayoo dhiigga la yska sii daynaya toobinka ah iyo cabitaanka malabka iyo iskubidda, laakiin ummadayda waxaan u diiday iskubidda oo aanan la jeclayn. macnaha waa laga yaabaa dee alamkii iyo xanuunkii hayay qofka marka xanuunkan lagu dhajiyo dabka ee uu ka bo-okii ama uu ilaawo si dhaqso ah inuu idhaa dabku waxbuu bogsiiya, halkuu ka odhan laha ilaahay waxbuu bogsiiyaa. dabeedna leexashadaa markiiba caqiidadiisu ay qofkii leexanayso ayaa loo yidhi bahalkaasi waxbaa ayaan lagu degdegay. inahaasi baynu ka xusi lahayn. cajaa'ibta halkaa waxaad ka arkaysaa marka ilaahay subxaanahu wa tacaala awoodihiisu ee kaaga dhex muuqanaya makhluuqan la yaabka leh. ilaaha masnuucaadka cajaa'ibkee noocaasa sameeyey ee saanica ah, suncadiisuna sidaa u wanaagsan tahay, dee arrintani waa inay astaan iyo daliil kugu noqotaa waxaan inaanay sidan iska noqonin ilaah wanaagsanoo sidan ka dhigay inuu jiro. dabeetana isaga aad aaminto, isaga aad u mahadnaqdo, isaga aad ka amar qaadato, waxyigiisana guddoomato. uma kulii min kulli thamaraati faslukii subula rabbiki dululan. kul waa tufiid lixaata washumuul, waxyaabaha ay wax ku daweynaysa ka mid tahay inay hesho ubax badan inay hesho. marka tadakhul waa inaan lagu samaynin habka ay wax u samaynayso oo sonkor loo dhigay iyo meel yaroo lagu soo koobay iyo waxa waa in laga daayaa, waa inay xorriyadeeda heshaa. ilaa waxaana wuxuu caafimaad ku yeelanayaa marka shaygani xorriyadiisa uu helo, daaq fiican iyo meel wanaagsan u helo.
فيه يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إلهي عافمات كأساس تلمامي أي ماذا حيلين هدي الله لها فيه الشفاء للناس وعلي أي قليل هاي وحلمد نقول لها حباسو ديوك لليلي الحبة السوداء شفاء في كل داء إلا الصعب مركا كل ده هالكذا يقلي كري لها يدور ده أشاس فيه الشفاء لنا عافمات كدتك كتيرين نقول لكن إمك عافمات مركا لا يلي وحنا يتصينا يساوون العذر هذا قار كذا والدوائيو بإذن الله تعالى وإلهي وكدوينه إن في ذلك الآية لقوم يتفكرون والله خلقكم إلهي إذن أبوري ثم يتوفاكم إذنكم بإساق إذن أفصنيو الدنيا إذن كحينيا ومنكم واحد إذن كم إذا من يرد من الله علينا إلى أرض للعمر عمرك كيس أولي تأي أساسق مد أساسق يا تضيا وإذن كم إذا لكي لا يعلم سيانو قرن بعد علم انتي وقول لها كذب شيئا وحوا إن الله عليم قدير إلهي با علم له وحو البنكرة والله فضلكم والله فضل بعضكم على بعض إلهي بركين ببركة كلو كديرات سيئة وإذن كلا سريسية تضيهو في الرزق حق أرساقده هي هينتا واكو كلا سريسان تضيهو إلهي با إذن كلا سريسية فما الذين كوي ما يهانين فضلوا لديرات سيئة أرساقده بدن هيستا ما ينقنين براد رزقهم أرساقده دا إيه أدون كودا كوا كعلين إيه على ما ملكت أيمانهم gacmahoodu adoomaha ay milkiyeen kuwa kuma celinayaan nala yeesha ma oranayaan dabeetana fahum iyagu fiihi sawa ay ku sinmaan kuma sinmayaan afa bi ni'mati illaahi yajhaduun ma ilaahay nicmadiisa diidayaan talo kuwan gaaladii ila cid kale oo nicmaha ay saama jirtay waa galad sheegashadii almanaan inuu inoo galad sheegto garbu leeyahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala adoonkuna waa inuu ka garaabo waxa loogu mahad sheeganayo intuu hoos u eego ilaahay ugu mahadnaqo tabaaraka wa taala intuu idin abuuro hadana idin dilaya qul inna salati wa nusuki wa mahyaaya wa mamati lillahi rabbil alamin jeero qofku sida uu isu dhiibo oo uu garto ka halkan keenay ee kaxaynay inuu isaga yahay adoonnimadii mu xaqiijinin marka adigu nooshay waa inaad garataa nolosha inuu ku dhiibay مدة معينة وتجابات مريس كقاضي حكمة كقاضي يعني يسجيه إن لقى قاضي أنا ضنا يكوتها أديب الكورن الدنيا ده عن ضد كان كصور وراء ترمى يوردن أنا نفت لقى قاضي ينبع وكيو الريلا كيو تنبيه يبير يانو أما سيدنا عيد وانشكتي سلوا ده أساس قيا أنا جو أبا هاي الليل ترى بو أبيه سكان يقول أنا جو أبا هاي الليل ترى أيسنا أبيه سكان أنا وحويان كناسة سقيكي كناسة سقي ما بي نلاش بدر كاكلو من هذا مركز سيدنا حكمة إلهي كان ثم أماته فأقبره ومركو إلهي ومن الشجرة وحلود دلوا بحبال بوسمي ثم يتوفاكم مركز قفقال انتنا سيدا آمن نلاش نين إلهي كان يجريدنا كان نبي محمد عليه الصلاة والسلام إن أنتيس بافرين صادر التوحي ترى أب المهي يراين شعلاين نراي وإل درين نفتي بهيسه أبي سعر فرين بكل عليه سجوا إن أنت الدنيا نوجيتشيو صبرك مشين كصبر كوجيتشنية الكساو حول إن أنت واحد ترى إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى إلهي وحي وقاتيبو ليه وحب حيانا السجالة وحولبنا أكتي سو مديسيها اصبري واحتصبي إلهي أجر ويدي سو إن أنا يصبر أرين كلمات شراء وضيعك هو أباه رسول كصداه هذا كي وفضل بدنا رسول هذا كم حجين كرايا وحبه لقب صائص كالصبر سنة إلهي لقب صائ كان يقول لي حكم بلا بين لله ما أخذ مو أن لله ما أعطى وله ما أخذ لكن ما أخذ ذي به الرئيسية وحنو قاتي سجى على هذا بحي ذلك قف يسبر ببايبا سنة إلهي سدا ولا صعنا يمرك وقرت ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا مد إنتانو أساسقين بمن يلا أفصنا يا نواجر مد أساسق يا نواجر أردل العمر هو أساسق وكن نبي محمد عليه الصلاة والسلام إلهي كما قال أعوذ بك من البخل والكسل والهرم وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات
دعاء النبي محمد عليه الصلاة والسلام سيء الأسقام عذرها حنب إلهي كما قال من قلبك يا من مغضى إلهي وحن كما قال بخير لماذا يا وهسك يا جبوجا يا أساسق يا عذاب القبر يا الدجال عور فتنة ديس يا جارد يا نراش فتنة دوده إلهي الدين تيل عليه marka أرذل العمر آياتها فسرته لكي لا يعلم بعد علم شيء وقفك لا يقان أقويها أنك هاي عقلك بطنايا وحكرتك أو حبك لك رواية والسعسع بالنظر سيدا عرورت أيو دبيتنا أو هضاقية ويسكو طبعا ما رئيسانيا سحرة ديسية كاديسي اسكمها قاتشين كرايو من باوحر وريارين ورشو انتي أن إلهي عمر درر بريي أساس قم بابا شو بريم وحارك يسقول الله نعي ولا قصي تركي ولا لا يكي ولا بلا يا أمس ولا سيد عروت الله وهي سيد ولا أساس قم بابا بريم يا مركب وانا عاوي إن الله عليم قدير مركب جاريدي أنا رش لبضها يا عمرك فرصة عمرك مركا waxay ku wanaagsan tahay inta awoodana aad leedahay aqoontana aad leedahay cilmigana aad leedahay inaad akoonka buuxiso oo aad shaqaysada amal fasho ilaahay agtiisa wax ku anfacaad keento ilaahay dhawta waxaad gaaraysaa waqti oo fursadii ay ka lunto oo waxba aad qabsan kari weydi fursatul umri la tu'awad wala tu'ad fursada umriga lama soo celiyo baa lagu mana cawilo walaba arimood maalka waana lagu cawili karaa waana lagu soo celin karaa maalka wixii ku dhaaf laakiin fursadda umriga iyo waqtiga idi ku cawili mayso lama soo celiyo waqtigii tagay uu tagay marka nasku wuxuu nafarayaa nicmada weyn ilaahay uu nasiinayno ka faa'iideysano nicmataani maqbuunu fiihima kathiirun min an-naas as-sihhatu wal-faragh in badana ummadda kamid laba nicmo ilaahay uu siiyo ka dhacsan buu nabigu calayhi salaatu wasalaam kama faa'iideysanin waa maxay labadaas caafimaadka iyo jaaniska waqtiga afarta arrimood ee marka u horeeyaba la weydiinayo qofka markuu qabriga ka soo baxo ayay kamid yihiin laba kamid yihiin waa cimriga iyo cududda ilaahay uu qofka siiyay labana waa waqtiga waaya waqtiga iyo cimriga waynu garan dadka ugu liita caalamkeena marka aan been la isu sheegay inta ilaahay uu sawaabka waafajiyay way inta ilaahay uu fursadda uu waafajiyay waqtiga aad bay noogu yartay umada caalamku ama diin baa looga faa'iideeyaa ama duun midna ugama faa'iideeyno diin iyo dunyada loogama faa'iideeyo boqolkiiba marka la eego nisbada dadkeenu ay ka faa'iideystaan waqti aad bay u yartay aad ay u yartay 24 saacadood hadii la eego نعمة كلا إلهي وتلمامي وحوي والله فضل بعضكم على بعض في الرزق أرساقت بينسيه مركاسو وليبا ضدك وكلا ديرات سيه موسمين إلهي وأكو كلا دوي هذا تالف تجد واحد حكمة الدنيا ده يكون عنا يسيقو هدي والله جو وضع لا وضع فقير أما وضع تاجر وضع غني قف مال ضد وضع مال قبينة أما وضع فقير هدي لقى لا نرش السيابة وقالها وعجيب لكن سيدنا ليتخذ بعضهم بعضا سخريا بآيات الله waxay lahayd dadkii dabaqaad uga dhigu kala sareysiyay si ay isugu shaqeeyaan kan qaniga ahi wuxuu u shaqeynayaa faqiirkuna qaniga u shaqeynaya marka shaqooyinka qaar kood waxa laga yaabaa ka qaniga maal qabeenka inta baahi uu qabo faqiirka u shaqeynaya in ka badan inuu qabo isagu shaqo hadii aan loo qabanin wixii soo dhamiba ay baaba'ayaan alaabta imika waqtigeedu dhacayo ama ka soo qaad time-kiya waqtiga leh ama waqtigii la iibsan lahaay kaba socon lahayd ay barita tahay hadduu waayo gaari u qaada iyo xamaal u rara xaguu soconaya wuxuu wadaya matungu ku guraya sidee buu odhanaya isagaa dadka baryayo lacagtiisa ku baryayo daba socdaba ee ma aha oo kaliya ka faraha marani inuu yahay un ka baahan marka ilaahay baa tafdiilkaa sameeyay subxaanahu wa tacaala iyada awood ilaahay tahay haddana waa aayad aad wax kala soo bixi karaysa mas'ala caqiida sida loogala soo baxayaaba ilaahay uu tilmaamo waxa uu yiri فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء معناها آيات وحوية كوا أرساقة لغو ديرات كسية أغنية هين تبضاني حولها لا يلا فضلين كوي أضومها أو أها انت أو يران أوران ما ينوركالا يا حولها يغن أن وضيالانو
may dhicin buu ilaahay oo dad iyo how idinkama hayo kuwiina wax leh ee sayidyada ahi addoomaha aad leedihiin inaad tidhaahdaan waaraan nala yeesha xoolaha laguma hayo nin yidhi addoonkaygii kaalayoo xoolahayga ila yeelo may dhicin ee isagana buu leeyahay adigaa xoolahaygii ahoo aan ku iibinayaa adiga addoonow xoolahaygaad ka midtoo waan ku iibinayaa intaasuu qiimahaagu joogaa sayladaan ku geynayaa buu leeyahay waaba intuu idhaahdo waxbaad ila leedahay bal waayo haddaba idinkoo addoommo ah haddaad diideen addoon idinla simani inuu wax idinla yeesho ilaahay wax abuuray kuwuu abuuray maxaa waxulay ugu darteen adeegada natiijada ilaahay uu siimay caqliga basharka ayuu si cajiiba ilaahay ula hadlaya adigii addoonka ahaa ayaa waxaad diiday addoon kale inuu wax kula yeesho ilaahay maxaad u tidhi addoomihiisaa wax la leh subxaana allah waa khata faaxishaho aad iyo aad u liita natiijadaasaa ilaahay uuna barayaa inaynu halkaa si mantiqiya u fikirno fama aladiina kuwii may ahaanin fudiluu la dheeraad siiyey ee maalqabeenka ahaa biraadi risqihim arsaaqadoodii xoolahooda kuma celiyaan calaa maa malakat aymaanuhum gacmahoodu addoommaha ay milkiyeen kuma celiyaan oo lama wadaagaan dabeetana fahum iyagu fiihi sawaa kuma sinmaan kumana celiyaan mana wada yeeshaan way diidaan anna waan diiday baa ilaahay ana aqna shurakaaya cani shirki ilaahay baa wuxuu uhi waxa wax la wadaajiyo dhan anaa u qanisanoo dee qof cidda aniga iyo cid kale wax la wadaajisa oo naga tagaalo afa binicmati illaahi yajxaduun waa saas wey ilaahay nicmadiisii bay diideenoo markaasay cid kala siiyeen wallaahu jacala lakum ilaahay waxau idin yeelay min anfusikum nafihiinna wuxuu idinka abuuray aswaajan ooriyo wa jacala lakum min aswaajikum ooriyihiinnii iyo xaasaskiinnii wuxuu idinka faracay baniina wiilal waxafadatan iyo kuwa wiilala u awowtihiin warasaqakum min aayibaat ilaahay arsaaqadoo dhan buu idin siiyey afa bilbaatili yu'minuun masanan bay rumaysan yihiinoo wa binicmati illaahi hum yakfuruun ilaahay nicmadiisiina way ka gaaloobeen ma waxaan muncim ahayna waxba bixinayna way aamineen ilaahay muncimka ahaana way diideen waa su-aal mar walba lagu daba wado oo cajiib oo jawaabteeda lagaa sugay wayacbuduuna min duuni illaahi inta alla ka sokaysa waxay caabudayaan maa laa yamliku lahum waxaan u haynin risqan arsaaqad min asamaawaati waalard samooyinka iyo dhulka shay-an waxba aan ciriya dhultoona uga keenayn bay caabudeen walaa yastatiicuuna waxba aan karayn falaa tadribuu lilaahi alamhaal ilaahay tusaale iyo wax nid ah mathiil macnaa ha u samaynina amhaal aad tidhaahdaan waxbay ilaahay bay la mid yihin in allaha yaclamu rabbi wuu ogyahay wa antum laa taclamuun idinku juhaal baa tihiin waxba garan maysaan buu ilaahay xaqiiqata lamri waa kaa ilahay idin sheegay nicmooyinka ilaahay uuna siiyey ee la xidhiidhay xagga duunyada markuu inoogu soo mano sheegtay kadib wuxuu inoogu mano sheeganayaa nicmada dadka dabcan dadkaana ka qaalisan maxay duunyada soomaalidu waxay dhahaan dad la helayaabaa duunya la hel haddii dad la waayana duunyaba ma jirto dadkaa soo saara soorsiska ama ummadaha waxyaabaha u muhiimsanee khayraadkooda dad baa ka mid a quwa albashariya quwada bashariga oo maanta aynu ognahay ummadaha gaaladu inay fahmeen inay ka faa'idaystaan ummadaha gaaladu waxay isku dayaan wax alla waxaa u qaxaya iyo waxaa iyagu isla qaxwo raadsada intay ka faa'iidayaan baa badan qofkii waa loo dhiibaya laakiin waxba lama dhaqaajinayo xagga kalunbuu ka soo shubaya weelunbaa loo dhiganayaa wixii waday oo dhan iyo wixii la siiyey oo dhan dhanka kalea looga shubay kuwa caamila ayaa la doonaya waaya dadka ilaahay una siiyey subxaanahu wa tacaala waxaa ka mid a xaasaskeenna waxaa ka mid a ubadkeenna waxaa ka mid a ubadkay sii dhaleen intaasaa nolosha macno u samaynayo camiraya marka ka waran haddii la waayo sidaa gaaladu ay u fikirayeen xaasasba wax la guursadaba haddii la waayo nolosha talow sideebay noqonaysa sidee loo tarmayaa wiilashan qaarna la dhalay qaarna awowga looya aayaddu ay sheegayso yaa dhalaya talow ma warshado basharku uu leeyahay bay ka soo baxayaan marka dadku waxay u fikirayaan si khalada bay u fikirayaan markay dadku diin la-aan noqdaan fikirkooda waa cawaj weeye cawaj marka wuxuu ilaahay naftiina idinka abuuray aswaaj kani inanta uu dhalay baa kan zawju ah kani inanta uu dhalayna kaa kalay zawju tahay bal wuxuu sharciguba baneeyeyba inuu hebel guursado inanta hebelkaa kalena tiisa uu weydaarsado yaa wax diidaya meelaysa
هبلو inantaada ii guuri anna aan ku guuriyo tayda waa isweydaarsadeen ba kanu dhalay kana kanu dhalay nolosha saasay ku socotaaba waaye jacala lakum azwaaja laakiin ilaahay wuxuu tilmaamayaa min anfusikum dabcan taada shay maaha laakiin min anfusikum waa ta sadaqaaga u dhalay weey min anfusikum ta ilaahay uu tilmaamayo ilaa xayaatadii iyo nolosha dadku qaadanayeen baa naf kaliya isku wada xisaabsantay naf kaliya ayay ka dhigeen laba nolol is dhamaystirayse ja'ala lakum min anfusikum azwajan sidika aayadii kale ilaahay marka uu tilmaamay waxyaaba ajaayib kale aayaadka ilaahay kamida wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma ooriyahaasay ka soo baxayaan ragga la jecel yahay haddii habla la diiday waxay ka soo baxaan inamada laftigooduba cidla kama yimaadaane waxay ka soo baxaan hablaha ah wajacala lakum min aswaajikum baniina waxafada xaasaskiina waxaa ka heshaan wiilal iyo xafada waa kuwii loo awoogaha marka qur-aanku awlaad ma odhanin halkan ee imika wuxuu sheegay baniina waxafada labaduba waa labkii luqadda ay fahmayaan baa ilaahay uu kula hadlay haddii inanta aydaan uba dareensanayn inay nicmo tahay laakiin inamada u dareensantiin inay nicmo tahay dee inamada ilaahay baa keeno halkaa ka keena marka waxaad isweydiinaysaa inankii aad jeclayd ee aad dhashay iyo kaad awowga u ahayd miyaanay ahayn inaad kasii jeclaato masterkooda halkay kaba soo fulayaanba kuwani meeshay ka soo baxayaan iyo taxaggeeda ay ka yimaadeen taa inaad kasii jeclaato miyaanay ahayn kanaad jeceshay meel buu ka yimi oo asal u ahoo dee hooyadiiya dee taasay teeba inaad kasii jeclaataba iyo dhalashadeeda iyo tarankeeda waaya xafada xafiidka waxaa la yidhahdaa khaadimka qofka shaqeeya xaafid ducadii bay ku jirtay ilayka nasca wanaxfid ducaa lqunuud oo macnaheedu yaa nusric ilayk xagaagaan usoo degdegaynaa markay duca noqoto ka habsaami mayno marka qofka xafiidka ah waa qof yusric fi lkhidma markuu shaqaynayo aada u dhaqsadaa u degdega waxaa loogayay kuwaad dhashay inay kasii dhaqso badan inay ka adeeg badan yihiin kuwa qofku uu u yahay awowga ama ayayda kuwa uu yahay baa khidmada dee way yaryaryiinoo kuwaasaa kusii wanaagsan marka dee indhihiisu way ku raaxaysanayaan qofkii kolkuu arkay tarankiisii oo uu ka soo baxay daru awowya oo adeegaya oo jecel awowya ayay leh aada iyo aad reer magaalku malaabu ka naxaw anigaa gaboobay buuhaa kol haddii awow la yidhi ama ayay la yidhi laakiin waa nicmo ilaahay oo ilaahay noogu mana sheegtay subxaanahu wa tacaala awow haddii lagu yidhi waa cimri wanaagsan baad soo gaadhay dad wanaagsanna waa dashay وايه ورزقكم من الطيبات إلهي بأرساقت إذن سيئة طيبات نعمة باطل كا إلهي وشيقوا فبالباطل يؤمنون والسنمك آيات الضمنة دواتا أبركيس ما سنم بي رميينو إلهي النعمية النعمة دي سنوي اللاوي وياه وحي عابدين ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون وحان كهين عركة iyo dhulka arsaaqad ka haynin risqan baa ilaahay wali hadana shay aan buur hadana la yastatiicuna buur intaas isku lifaaqa midiba mid bay akidaysa la yamliku lahum kuwa caabudaya uma hayo waxa la caabudaya jinle ee insile ee qoryale ee maxaan ku raahdaa waxyaabo makhluuqaad leh ma hayo arsaaqad kama hayo samada iyo dhulka waa waxaad ku noolayd waxba kuma hayo uguma kordhin karo bal dalka ka واسع عجيب هو إلهي وكبر رجينا يقف وحخريه يقف عن آخرين قف جاهل يقف متعلم مد ولا بقى وحبل بقولي بقى وحوال عابد داي وحال أفك جلسات كل نور شيء وحمقوها يا إله وحبل أرساقي ووعد شبه مركز شيء وبدل بيكته رزقا لا فعل كهل مفعول بقاضنا لا يملك لهم رزقا لا يملك لهم شيئا ولا يستطيعون حوما كريان هذا فلا تضربوا لله الأمثال إلا أنت صوت سالة لبسوسية إلهي أمثالها شركها وصميننا waad soo aragtay inaad diiday adigu in wax lagu la yeesho waad soo aragtay in wax nicmo aanu ku hayn waad soo aragtay wax arsaaqada inaanu ku hayn hadaba ilaahay wax kale ha barbar galinina in allaha ya'lamu wa antum la ta'lamuna waxa sheegaysa ilaahay baa oga ma oginin wuxuu og yahay waxa ku badbaadaysan adduunyo aakhirada darab allah ilaahay wuxuu tusaale ka dhigay dad yahow مثلا tusaale wuxuu idin ka dhigayaa abdan mamlukan adoon la leeyahay
laa yaqdiru calaa shayin waxbaba ma karayaba iyo waman mid rasaqnaahu mina risqan xasanan xagga iyaga aanu arsaaqad fiican ka siinay kaana ilaahay tusaalu ka dhigay fa huwa kaasi yunfiqu minhu waxaa la siiyey wuu ka bixinayaa wax siran si qarsoon wajahran iyo si muuqata hal yastawuuna dee kuwaasi miyay simayin maaya alxamdu lilaah ilaahay baa mahad leh bayaamiye xaq iyo xujada bal akaruhum laa yaclamuun intooda badan isa cilmi ma leh umay dhaadhicin wax loo sheegay dadyoo miyay simayin addoon mamluugoo la leeyay faramadhanoon waxba haynin iyo nin arsaaqad badan ilaahay uu siiyayoo sayidahoo tasarufaya intuu isagii kaaftoomay dadka kale wax siinaya labadaasi ma sinee hasimina ilaaha subxaanahu wa tacaala isagu mutasarifka ah ee mudabbirka ah ee khaaliqa ah ee raasiqa ah ee intaasoo awoodooda aayaddu ay soo tilmaantay leh iyo sanamka ama shaydaanka ama daaquudka faraha maran in waxba haynin halkaasuun ka eeg haddii aad akhrido aayaadkan caqiidada kuu dhisaya kuma meeraysanaysid faaliye iyo sixirle kuma meeraysanaysid shaydaan kuma meeraysanaysid islaam fooxisa kuma meeraysanaysid oday sula dhintay oo xabaal galay oo lafiisii ay kala daateen oo xayntiisiina la dhaxlay islaantiisiina la dumaalay midna ku meeraysan maysid waa saasaa ilaahay uu ku tilmaamay ilaahay waxa uu leeyahay waa mutasarrif wax walba isagaa haya intaasoo nicmo idinku manna sheegtay intaaba isagaa idin siiyey oo idin sahlay meel walba leh haddaba kuwa ilaahay barbargeliseen wuxuu la mid yahay addoonkan faraha madhana iska fadhiya mamluuka ah gow ah ayuu la mid yahay bal dadkii baad tidhaahdeen taajirkan iyo mamluugani ma sinaa ilaahay iyo kan kale faraha madhana maxaa u sinteen haddaba xujadu dhanka kaga keenaya oo dhanka laga keenaya oo waa xujatuhum daaxida falilaahi alxujatu lbaariqa ilaahay xujadiisu way xeel dheerta kuwana xujadooda way fashilan ضرب الله مثلا عبدا إلهي أضم بتصالة كدقي مملوكا لا يقدر على شيء ولا ليه وحبا معي مملوك وحلا إلى مركا مقعي سلا يقانا القن فقه إسلامي القن وعبد قن وأضم برحلة أضم صافية معناه أضمكم مقعي كلو ليه هذا بدو حلا إلى هذا مبعضكم معناه ذو حوية قيبنا حربين نقط قيبنا ولي أضم نبدي باكوسي علي كاسي حوغا دقدقاق ليه oo intuu soo yaro shaqeeyaaba wax ku ayuu dhinacaas u xoriya midna mukaatab baa la yiraahdaa shardi baa lagu xidhay adduun inta la ka tahay bal la kaalayda xor baa tahay isaga laftiisu waxba urursan karaya kan intii midna ma ah mudabbar baa isaguna jiro qofkan geeridiisa sugaya oo lagu yiraahdaa mid faanta xurun bacda mawti xor baa tahay kaasina geeridu sugaya kaana ma aha laakiin waa mamluuk waa mid sidiisii ah sidii adoonka oo adoon buu xaw وما رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا إلهي أدومه سمسنا سيدا كوا الله هل يستوون الحمد لله إلهي كم هذا حقا كوعدي إلهينا سبحانه وتعالى حجدي كل هذا عطاته ومهد لي وضرب الله مثلا رجلين تصالك إلهي تضيع وحيد كردق إلى بني وتصالك لقوق عطينا يو توحيد كإلهي يحقيس إنا نصطفات قليل تصالك u baahan weeye qalbigaaga inuu daadego cidii qabash iyo madmada uu caqiidada kaga jiraan lagu saxo ضرب الله مركله مثلا تسال رجلين لو nin buu idin ka dhigay ahaduhuma midkood abkamu wadam chuuq afkiisa chuuqda gabayo ma yeerayo la yaqdiru ala shay waxbana ma karayo mid wax qabsanaya maaha waa dhagoole aan waxba qabsan karayn وهو يسقو كل عليس بكيه على مولاه سيد كيسة كإسكال عليس بكيه حبا ما سو كرديو أينما يوجهه ينكستو وتشيريو لا يأتي بخير حبا ما كينيو هدو بري وتشيريو يهدو قلبي وتشيريو وبارالايس فكاسو فرديا هل يستوي هو كاسمي سميهين ومن يأمر بالعدل يمد عدالة فرية يسقو عادلة ولبا وهو على صراط المستقيم tubtii toosnayd iyo jidkii toosnaa ee isna uu ku horumaraya ummadana uu ku horumarinaya jidkaana haya labadaasi ma sinaa tusaale kale oo muujinaya dadka ilaahay inaanay sinayn adiguna aad ka garaabayso inaanay sinayn sida aad uga garaabayso inaanay labadani u sinayn uga garaw
ilaahay iyo waxa kale la barbargeliyeen inaanay u sinayn waaba intaaba sida basiidka ee sahlan buu ilaahay ku fahamsiiyay caqiidadii waxa la doonayaa inaad fikirka ka shaqaysiiso fidradaada abuurkaaga caadiga aad maskaxda si caadi ah uga shaqaysiiso baa la doonayaa wala yusibaka ma yusamma bitahajjur alaql xidhnaan aqliga ah inaanay kugu dhicin oo aanad cid aqligaagu aan u aftuubnaanin oo aanad odhanin inna wajadna aabaana ala umma dee diin baanu helay aabayaashay haystaan oo tii baanu ku egnahay waa inaanad odhan laakiin aqliga ka shaqaysiin waa laba qof midis adoonka weeye waxa weeyaan midi waa ka tilmaanta leh tilmaantu ilaahay ka bixiyo waxa weey abka hadalku cajiib dhaliisha ilaahay qofkan uu soo jeediyay ugu horeysa waa hadal la'aan ee ummadu ilaahay baa ugu manna sheegtay subxaan الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إلهي وحب براي مركو إنسان كأبوري هذاك يو براي مد أجنانه أفحرا أو ميادا كمو دجنه مد متكلمه فصيحه بليغه يعبر عما في ضميري واحد ضمير كيس كوسو جن جارسين كردتك كلا دجوه ده أي إلهي وكدجا سو عد وهننكره وأي عد في عم بعد له وهننكره سيدا درادد أهدافنا لغو هرقلين كراه لذلك بوسائل الدعوة دعوة يدين تإلهي ضدك لقارسين أيو وسيلو ودوين كالله استعمال يتكوباد إلهي وحاو كردقاي إنو لقد الرسول والبدد كيس وصادره بلسان قومي قالوا والبا وانصاد رسول والبا إلهي وحاو روحا كدري بلسان قومي قول ديس لقد دوله أيها الله كدري واي أبكم كاسوي ومن نعم الله نعموين كواوي لذلك بهدي قفك وحلقوا له هذا الكو كحرمه نرفياش هذا الكنت وحنقضان هذا الكو حكان نقضه هوا يسكحوق وين هذا حمالة يبيه وبقول كيس وكنت مكتيسي ورقي الدمر متكستا هذا دية كاملة في الكلام دية كاملة دية كاملة ومعناه أحبال قديم معي سو كان نولي سو كان شقينا سو كان يسوي جاي لها لا يمشلو قوة الكلام باكت النعموي لا يقدر على شيء وحي تلماميسا قوة البطش قوتي وحقبت كلام عليه ونرفي وحقبت كعادلا أطرافتي حبنيها ولا هذا لكن وحقبت كيبا أيا كتجي كعمه الدمدي صعدكي شقيت سجي شقين تصاش شقين لهاي ونين كان إسكلا وحكوسه كردين لها أنا بتشيره وأنا مسيء هيدا بالكايرة كرسي كايرة شهر كايرة وكفرديه وقف كي نرفع أي وحنا قدين وكذا وهو كل على مولاه عليس بكويا موليس وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير إن عود شيء أنا أحبك غير كما كان قف كاسي وقف أنا وحبس وكردينين تذكر هذه الشارع لبعض النوع عاسي ولاية وأبوكان كي بداية اللي يسكن عشريوي مركا كنوع عاسي كلا ما مده مركا قفك بني آدم كاين إنه الشرف يا أمان يجعل لجعلها وكل وحتركه ayaa halka ilaahay ku muujiyay wayse kala duwan yihiino qofka dee musiiba ay ku dhacdo ee maqaadiir ay ku dhacday waa loo samafalaya isaga waa la dadaalaya laakiin waxa uu qaadan waaya qofku isaga oo wax qabadkii iyo awoodii leh haduu astaantan yeesho huwa kallun ala mawlaahu aynama yuwajjihu la yatib bikhair xoog buu leeyahay oo tacliim buu leeyahay oo hadal buu leeyahay wax walba uu qabanaya haddana culays buu ku yahay qofka bulshada حاجة إنه وجه حاجة هذا إنه وجه إنه بري يقلبات من نحوه إنه مكانه هل كانوا قارول بفريا وقيليا كل كرسي بوفوشية كل مجلس بوفريا قارول ببرشة على سنبوية كدبد العك الدنيا كجوده شحاذة يا إسلام تيبو شحاذة يا حاس كيسي كي نرجع إنه يعني ساو دوين نرجع إنه دائما هنا صور كان بقى واحد ركبة إنه يودويه ninkii oo laga yaabo inuu mutacallim yahay oo laga yaabo inuu de lixdii lixaad caafimaad qabaan oo waqtigiisii haysto meel badan ka shaqeyn kara haduu tan oo kale noqdo maqaadiirtan ilaahay uu aynama yuwajjihu la yatib bikhair meesha aad u dirto war kuliga wax ka soo qabo war hawshan soo qabo war sidan sameexaaskiisu dhinaca ay u dirtaba midna khayr kama keenayo la inaynu cayn ka noqono ma aha dadka laga taliyo bulshada in wax ku soo kordhiso waxa la doonayaa bulshada aad la nooshahay ee ilaahay meel idin ku abuuray ee xigtadaada ee islaamka xilba ka saaran xoogaaga inaad ugu shaqeyso aqoontaada inaad ugu shaqeyso taladaada inaad ugu shaqeyso khayrun naasi anfa'uhum li'ibadi
dadka waxa ugu khayr badan qofka adoomaha ugu anfac badan isku day mar walba inaad dadka wax ku tarto oo aanad culays ku noqonin dadka dadkeena guduhu inta yara dabada joogta oo culays aynu ku wada noqono deema wanaagsanaa wax la soo kordhiyaa وايه هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم كنوع عاصة يا كلمة سمين كان وحويان وكائن شيغينه يأمر بالعدل عدالة فريا هاي كان دغت سغي هرت عادله الا عدالة ما فرق فان عادلهين عيب بابي تهايو دا اسكا مصيبه اسغا عادله عادل قرمو نقدا قف إلهي بو حقي سيسي حقي نفتي سوسي حقي ويسكي سبحي حقي ومضى حقي قرابة حقي أعطى كل ذي حق حقه عدي حق لهيد بحق يدي بسي مركاسو لي ورانا وايكا أنا أقول عادل بانا عدول بحق يدي وانسي طلو عدالة كنتو أصنادا مركا واقف يسوي أرنكيسي ميل كتيريو أتكايا ومضنا وكر منايا جيت توصلنا هيا جيت كي إلهي ولي صومرا لبدا سمين مركا قيمين لا سمي ما سنة إلهي أدوميه سنة ما سنة يكو إحلال وذا جنيا ولله غيب السماوات والأرض إلهي وحا أصغنا له وحا كم قنسموين كي يدولك وما أمر ساعة قيامة أرهن كيدو موهان مركو إلهي كينا يهديو إلا كلمح البشر إيش بريق ديده أو هو أقرب أما وحكسيد لوي بدوي إن الله على كل شيء قدير إلهي وحا البكرة والله أخرجكم إلهي وحيد كسوة صار من بطون أمهاتكم علوشة هو يوينكين لا تعلمون شيئا وحبا ميدان قرنين وجعل لكم السمع مقل كويدين سمي والأبصار أرى كويدين سمي والأفئدة قلوب تيقرات كويدين سمي لعلكم تشكرون لكي تشكرون برسيا إلهي وأمهات نغضان ألم يروا ددكم ياني أركين كون إلهي كسهر جستين ياني أركين إلى الطير شمبراه مسخرات لسهلي في جو السماء صمده سمدا أسره هابية ما يمسكهن إلا الله إلهي مو يعد كلين يصعد عن كما هيسو إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون أرمها على موين وين باوسوغان قار إيمان له كبلا إيمان كأو حما مقلانه وهذه إله عجائب كبضنا عشرة لقى كسبني إلهي أتكبرني سبحانه وتعالى يفر سمدي سواناك كاغا موقنا يا عرك يا دولك كاغا موقنايا مخلوقاتك إلهي كاغا موقنايا نفتاده أحبطنا آخر سبحانه وين كل علينا إلهي وحا سيدي سدا أرهنك مهم أصلك ومدنيها تكرار شيء هاتي مرقل لغو شيء صف مربو النقضة لكن هاتي لغو قدسو لغو عليو هذا يدل على عنايتي أرهنك سينو مهم يهي أي موجنيس مركا مر لغو عليا لبا لغو عليا صدح لغو عليو وحكى الله إلى ذلك ما تكرر تقرر وحكستون نغنوضا وصق معه أو رادعاه لكن مسألة ما دام أصل تدول بينه إلهي قيمة دوقف كي قنعيه وي غيب كالسموين كي يرلك إلهي لي غيب كالسموين كي يرلك إساق أنا إذي كور رمية سبحان القرآن كيما كور رمي غيب كاو حكم إلى قيامة الساعة ساعة وحا لغو مقع وقت هذا نقص بلان ما هات اللي احنا نكمرنا لكن الساعة ووقت من الأوقات يران كرا بدنان كرانا إنه معناها يهيدا وحبا لغو ربا قيامة أرهن كيد وحوي كلمح البشر أو هو أقرب والبرغس أما كسي يربع مركا الساعة نوالو بحيه غو نقصيه هذا الدرادي والو بحيه مقعا غيب كي كميتهاي وإنه رميسان هاي وأنا عمل فلينا هيابنا هوران انتلو البرغس وحكير وحبا لغو مسألة oo time-ka ugu yaraa wax lagu saleeyaaba dareenka ilaahay xaqiisa ka qaadanaysa ka adoomaha ayuu noqonin laga qaato ilaahay wuxuu ku leeyahay Allah ala kulli shay'in qadir dhinaca ka kaalayo haddana xaggaaga u soo jeedo naftaada eeg ilaahay wuxuu idinka soo saaray min butuuni ummahatikum la ta'lamuuna shay'an caloosha hooyadin idinka waxba garanay ilmaha yara mujadahay markuu soo dhasho adiga arkay indhihiisa iyo aqligiisa iyo aragiisa iyo maqalkiisa iyo waa mucha la yiraahdo waa wax yar oo mucha gacanta laga dhowraya hooyadu baa loo daayaaba iyo islaamaha ka umuriye raguma dhawaado arinkiisa halkaas iyo la ta'lamuuna shay'an taas waxay ku muujinaysaa talow ma aqoon iyo macrifa inoo asala mise jahli baa inoo asala insaankuna wuxuu cilmi heli karaa wixii ilaahay uu siiyay innahu kaana zaluman jahula
وظلوم جهول هل كان وحي لا تعلمون شيئا marka aqoon uu insaanku ku faani karo oo uu sheegan karo ilaahay isugu dharin karo maaya taasi ma jirto oo wuxuu ilaahay si wama utiitu min al-ilmi illa qalilan marka wuxuu inoogu mana sheegtay markayna halka marayna aynu soo dhalanay inuu ina dhameystiray waxyaabaha waliba ilaahay inoogu mana sheegtay kuwa ugu qaalisan way maqalka araga iyo aqliga al-afida qalbiga طبعا waxa la shaqeynaya maskaxda marka culimadu garaadka ay ku fasiraan nicmada weyn inta faraha badan nasku markan uu aqliga al-afida wal qulub markan uu leeyahay garaadku baa loo jeedaa oo garaadku maskaxdu ka yimaada mise qalbiga akhiran waa tan loo badinayo inuu ka imanayo bahalkaas manaadkiisa yaalku ku xiran yahay maskaxda laakiin nusuustu waxay tilmaamaysaa qalbiga inta faraha badan xustaa lidalik marka la fasirayo waa in la isla akhriyaa labadoodo waa wadnihi iyo maskaxdii nasku wuxuu sheegay wadnuhu sheegay marka maskaxdiina xokayntii bay u tahay lifaaqa u ahayd ee u adeegaysi ayay noqotay iyaduna ma kala maarmayaan waxaan loo leeyahay garaadki waa manaatu takliif halka xilku qofka uu ku fuulayo way xubin kasta oo jidhka ka mid ah hadduu qofka ka tago xilku kaba dhaco hadduu dee qaybtaa dambe oo dhan baqtido intaa sara uu nooshayo wuxuu garanaya uu xilku salaadii baa saaran oo waajibaadkii oo dhan baa lagu leeyahay iyo cibaadaadkii oo dhan xilkii waa saaran laakiin isagoo xoog weyn oo ordaya hadii dhaawacu gaaro maskaxdii oo garaadkii oo lumo xayawaanka liiskooda ku beero waxba lama weydiinayo marka aqligu waa cajiib weyn al-afida intaaba ilaahay baa idin diyaariyay ajaa'ibka ay leeyihiin iyo nicmada weyn ay leeyihiin daraadeed baa ilaahay adoomaha ugu mana sheegtay la'allakum tashkuruun maba mahadnaqi karnaba wa inta udu ni'matallahi la tuhsuha asal keedaba nicmada ilaahay nabigu wuxuu leeyahay la uhsi thanaan alayka anta kama athnayta ala nafsi ilaahay inay nicmooyinku inasiiyay uga mahadnaqdo ma suuroobaysaba laano adu qofku xataa badiyo shukriga ilaahay uu badiyo shukriga uu ka waafajiyay laftiisa ayaa nicmo ah oo isna shukri u baahan balay shukrigan uu ku waafajiyay aad mahadnaqayso qudhiisa mahadnaqu baa kullama markastood mahadnaqu u sii baahan yahay bal xagu ku dhamaanaya waaye mahadnaqan laftiisa ila qaar badan oo mahadnaqin oo ilaahay ku gacan sayro ka gaaloobo waalan baa jire mahadnaqan inuu ilaahay ku waafajiyo waa cibaada isaga ku sakhiray waa amal saalix oo lagu sakhiray isagaaba mahadnaqu sii baahanba marka mahadnaq ilaahay maba dhamayn karna laakiin intaynu kari karno shimbiraha eega مسخرات في جو السماء سماء سهلين ما يمسكون إلا الله إلهي بهايا أوران بالاش هيا يا أبورك ولا سدنا يا عين كان إسكيا يا وحب الطبيعة يا حيوان كان تونه ريحين إلهي الريح سدوا الضولة يا هبكيس وعرن إلهي بقى سهلين إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وحاصل مو آيات من الحيوان وآيات من نفسك وآيات من الكون آخرين بهان سيدين كتاب كانوا آخرين oo markaad kan akhrido shimbirtana eeg markaad kan akhrido cirkeedu ka eeg markaad kan akhrido maqalkaaga iyo waxaad dhageysat aad maaragtay u fiirsataa iyo aragaaga iyo garaadkaaga inta ilaahay uu ka dhigay qofba garaadkiisa intuu ilaahay kala dhigay buu ku xisaabtamaya ka aqliga weyn ee macrifada leh ee indheer garadka ah iyo ka nacaska ah ee imika aan waxba kala fahmayn ilaa budka lagu dhufto labadaas hadda isku nicmo ma aha ogow ka aqligiisu wax weyn uu ka fikirayo wax ku badbaadin kara wax ku horumarin kara cid wax ku tari kara iyo ka wax yar uga bilaabayna aqligiisu uu yar yahay labadooda nicmo way kala weyn oo mid walba xisaabtiisu ka kala waa ka badanaysa wuxuu ilaahay si mid walba kula xisaabtamaya la'allakum sa ilaahay tilmaamay la'allakum tashkurun allahumma ij'alna min ash-shakirin allah subhanahu wa ta'ala يا ماهرا بكتاب الله تقرأه أبشر بنور الله والحسنات اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات يا ماهرا بكتاب الله تقرأه أبشر بنور الله والحسنات اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات